سرفراش mid ka mid ah aflaamtii ugu fiicnaa uu sameeyay Master Perfection yani Amir Khan filimkan Sarfarash macnahaan waa fadeexad waa film action ah kaasoo soo baxay sanadii 1999 waxaan idin wadaagi doonaa xog iyo xaqiiqooyin u gaar ah filimkan balse intaan u guda galin muuqaalkayga waxaan ka codsanaynaa janaalku soo biirto muuqaalka dadka shalaag noo saartay share garay oo la wadaaga asxaabtaada soo dhawaada saaxiibaya filimkan Sarfarash waa film action ah waxa uu soo baxay 3 Abriil sanadii 1999 waxa hogaamiyay qadaayna Amir Khan Nasruddin Shah Sonali Bandara Mukesh Rishi Akash Khurana iyo Jalal Kalodora markaan eegno filimkan waxa soo saaray agaasimo ka wada ah ninka lagu magacaabo John Matthew filimkan waxa la saaray in ka badan 220 tiyaatar lacagaha lagu kharash gareeyay waxa lagu sheegay 8 karoor oo ku dhawaad 1 milyan oo dollarka Mareykanka waxa uu keenay 18.77 karoor waa in ka badan 2 milyan oo dollarka Mareykanka natiijo ahaan waxa uu noqday film hit ah ama film guul weyn gaaray filimkan Sarfarash waa filimkii shanaad ee lacag ugu badnaa soo xareeyay sanadii 1999 markaan eegno filimkan xaqiiqooyinka laga diiwaan galiyay dhowr xaqiiqo ayaan ka eegi doonaa waxa la filimkan waa filimkii ugu horeeyay oo ka soo muuqdo ninka lagu magacaabo Nawazuddin Siddiqi ama Jalaaga lagu magacaabo Nawazuddin Siddiqi jilaagan hadda waa jilaa caan ka ah Bollywood ka awoodna ku dhaxlay marka la eego laakiin xilligaasi wuxuu iska ahaa qof iska bidha ah muuqaal yar ayuu ku lahaa sida hadda aad sawirka ka arki kartaan xaqiiqooyin kale laga diiwaan galiyo waxa kamid ah saaxiibayaal waxa la filimkan waa filimkii labaad iskala soo muuqdaan jilayaasha kala ah Amir Khan sidoo kale Nasruddin Shah Majaro waa taqaano ka hor filimkan waxa iskala soo muuqdaan filimka lagu magacaabo Hooli kaas oo la daawaday sanadii 1984 inkastoo Amir Khan waqtigaas markii la eego ahaan uu ahaa wiil dhalinyaro waxa xusid mudan 4 sano kadib in filimkiisii Qiyaamad tiyaatarada Hindiya loo saaray xaqiiqooyin kale waxa qayb ka ah waxa la filimkan waa filimkiisii ugu horeeyay uu director ka noqdo directorka filimkan ninka lagu magacaabo John Matthew xaqiiqooyin kale waxa qayb ka ah Jalaaga lagu magacaabo Mukesh Rishi Soomaalidu qarmil ay ugu yeeraan filimkan wuxuu ku jiray doorka positive role-ka ama in iska daacad ah ka hor filimkan aflaamta wuxuu kaga soo muuqan jiray doorka negative role-ka ama ka balaadirnimada waxaana xusid mudan in filimkan uu tartamay abaalmarinta Filmfare Award Best Supporting Actor ama door caawiye ugu wanaagsan sanadkaasi laakiin nasiib xumo kuma uusan guuleysan sheekooyin kale cajiibka filimkan waxa xusi karo waxa kamid ah Amir Khan oo ah qof muslim ama haysta diinta islaamka filimkan wuxuu ku jiray doorka nin Hindu ah halka Mukesh Rishi oo ah nin Hindu ah oo ku jiray doorka nin muslim ah sidoo kale filimkan waxa lagu soo bandhigay geeraar cajiib ah ama uu ku soo bandhigay Jalaaga lagu magacaabo Amir Khan geeraaradaas waxa lagu xusi karaa geeraarka caanka ah oo ku leeyahay dawabi kamna ay ku idwaana laga meeri quda kisi ko biarki hawana laga yani mar gabadhu rabtay inay u sheegato jaceelka ay u qabta ayuu ku leeyahay jaceelku ma lahan wax daawa sidoo kale duca xataa waxba looga qaadi karo ilaahay waxaan ka rajayay inuusan igu ridin दवा भी काम ना आए कोई दुआ न लगे मेरे खुदा किसी को प्यार की हवा न लगे haddaba intaas ayaan kusoo gabagabeeyaa saaxiibayaal xogtii xaqiiqooyinkii koobnaad kala wadaagay filimka caanka ah ee Sarfarash fadlan haddii aad ka hesho muuqaalka like inoo saar sii share garay oo la wadaaga asxaabtaada waan ku mahadsantahay daawashada muuqaalkeena